bilowga dhismaha mashruuca suuqa ganacsiga weyn ee Jigjiga oo ay ku baxayso in ka badan 8 bilyan oo bir ayaa waxaa dhagax dhigay madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Mudane Mustafa Maxamed Cumar. Suuqa cusub ayaa waxa uu ka koobnaan doonaa ilaa 1800 oo goob ganacsi, halka suuqii Taiwan-ka ee Jigjiga ee dhowr sano ka hor gubtay uu ka koobnaa ilaa 900 oo tukaan. Madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Mudane Mustafa Maxamed Cumar ayaa sheegay in qorshuhu yahay in mashruuca lagu soo gabagabeeyo muddo 2 sano ah, sidoo kalena in suuqan uu noqon doono mid casri oo tayadiisu sarreyso, taasoo ganacsato badan u abuuri doona fursado cusub. marka ugu horeysa waxaan ku hambalyeeynaa bilowgan mashruucan qiimaha badan ee wax weyn ka bedeli doona nolosha shacabkeena ee maanta aan bilownay oo aan dhagax dhigahayn mashruucii shaqadiisii ay bilaabantay. insha Allah maanta laga bilaabana aan u shirtirin doono xilliga uu dhammaan doono hadii la qorshuhu yahay in lagu dhameeyo 2 sanadood. waxaan rabaa inaan raaciyo dhibaatooyinka dabka la xidhiidha oo ay ugu horeysayna marka hore u tacsiyeeyo dadkii maalinkii dhaweeyay 40 iyo dheeraadka ahaa sidoo kale iyaguna ay dhibaato ku qabsatay, iyadoo aan bilaabi doono iyagana sidii dadkii hore oo kale in nidaamkii lagu caawiyay mid la mida la raaco oo la caawiyo insha Allah hadii la yiraahdo. taa waxaa la socota deena waagi hore suuq waaweyn iyo ganacsiyo isku xirxiran iyo waxaas meena lahaan jirin magaalooyin waaweyn kumayna nooleyn shacab ahaan. Jigjiga marka lagu daro dad yaani dukaanada yar iska kooban bay ahaayeen, haddii dhawaato dhacdana qof ma ku dhici jirtay. sidaa daraadeed dhibaatooyinka hadda dhacayo kale ma dhici jirin. waxaa loo baahan yahay marka haddii dhibaato cusub timaado xal cusub baa loo baahan yahay. sidii hore ma noolaan karna way macnuhu. inta badan baaritaano la sameeyay dhanka waxaan gubanayaa leerka la xiriiraan, marka waa qasab in awaamirta lagu shaqeynayo wax iska bedelaan. meeshii gubatay hadda ay u dambeysay waxaa nagu maqaala in saacado farabadan oo kala duwan oo aan habeysnayn ay ku jireen. dadku cilmiga uma wada waxaan oo dhan, laakiin dabku waa halis leedku. marka in mustaqbalka bal xagga wacyigelinta iyo xagga taxadarka laftigeeda wax laga bedelo way noqon doontaa. wixii Ilaahay qadaray lama baajin karo, laakiin Ilaahay adara aqli buu ina siiyay aynu waxyeelooyinka iyo dhibaatooyinka kaga badbaadno. marka in taa xoog la saaray noqon doontaa. waxa bariyahan caadi inagu soo noqonaya deegaankeena dhibaatooyinka dhacaya masiibooyinka dabiiciga iyo kuwa dadku abuuraanba in la soo doonanayo dawladda. waad ka warhaysaa arinta idinku dhinac waxay muujinaysaa xorriyadii aan ka hadlaynay in dadku wixii la qumay raayigooda xitaa kuwa khaldani wixii la qumay inay ku hadlayaan. dhinaca kale waxay muujinaysaa biseelka siyaasadeed ee deegaankeena yaalla weli halkii loo baahnaa inuu gaarin oo waxay dawladdu aad ku leedahay iyo waxayna ku lahayn iyo akhlaaqiyadkii lagu kala saari lahaa inayna weli meesha ka jirin. haddaan hebel nacabahay wax walba dhaca ku tuushi dhaqana inay socoto. abaaraha roob la'aantu ay keento waxaa arkaysaa dad leh abaar baa jirta culus, dawladda ka mas'uula. intaan ogahay goor aanu anagu ni roobkaan maamula ma jirto. haddii la yiraahdo abaarta maxaa laga qabtay xaq baa loo leeyahay, taa waajib baadna lagu leeyahay. maxaa laga qabtay meel heblaayo biyo lama dhaaminin, meel heblaayo waa la gabay. shacab dawladdiisii adeeg weydiisanaya wey, ceebna male. laakiin kolka qaarkood siyaalaha loo hadlayaa siyaalo bislaanshaha la'aanta iyo akhlaaqda siyaasadda weli hagaagin ay ka imanaysaa inay fahantaan baa muhiima. arrintan ugu dambeysay dabka qarxayna kuwa aan la mid ahaa isla markii uu dabku saa u qarxay dadkii u horeeyay ee arrinta ka hadlay waxay lahaayeen maayirka annaga toosinay waxaan oo soo jeedi lahaa mas'aaladeed buu noqon lahaa. madaxweynaha adduunka iyagoo hurdan baa la toosiyay waddanka waa la soo weeraray diyaaradaha qaxayan baa la yiraahdaa waddanka adduunka. ilaan maayirku waardiye ma aha, hadduu habeenkaa soo jeedo habeen ku xigtisu yeeli ilaa markaa guban kartee. marka waxyaalo bilaa fahan dadka inta laga faa'iideysto lagu dhex tuurayo
oo kiis laga dhigayo yaa ka mid in laga taxadaro shacabku yaa muhiima طبعا maayarku meeshii uu tagay uu ka hadlay hadal khalad loo arkay oo dadka qaarkii ka falceliyeen baa jiray raaligelin ka bixiyay goorma inagu dambeysay dawlad bixisa raaligelin goorma inagu horeysay dawlad tiraada malaa'ig madiina waan khaldano arinta aan halka naga dhacay raaligelin ma ka bixinaya ma jirin waan ognahay iska daayin raaligelin la bixiyo iyadoo la khalday baan la sii cadeyn jiro dadka la sii dhibaatin jiray marka waxyaalahaas oo dhan waxaan u arkaa wanaag soo kordhay inuu yahay una baahan in la bogaadiyo saasay tahay haddii gaabis uu jiro tusaale magaalada intan leeg dabdamis fara badan ma haysato muxuu ahaayey dad shaqaalo tababaran ma haysato arrimahaas haday jiraan waa inaan ka garawno nidhaahno waa run kuwaas iyo kuwa waan waxba ka qabanaya waad ogtiin magaaladan dadku dhiiqu mari kari layahay meelo badan marka dee ummad maanta haysata $1 bilyan ama $2 bilyan oo saaka aroortii wixii ku soo dhaco dhan xalin karta manihin sida biilka xaafadda yaalaba qofku uu tashiilanayo maanta maxaa ii daran ma iskuulka ciyaalkan bixiyaa ma waxaan muxuu ahaayey caafimaadkan ku horeeya uu leeyahay badoodan u kala horeysiinaysa marka maamulka magaaladu way ku mahadsan yihiin way ku amaanan yihiin haddii ay soo iibiyeen qalab 20 ka badan oo loogu talagalay jidadka magaalada in lagu hagaajiyo kuwa hagaagsan mooyee kuwan hagaagsanayn in dhoobada lagu yareeyo in lagu shaqeeyo aad iyo aad u dadaaleen oo maartay natiijadeedana waa la arki doonaa haddii markaa dabdamis loo baahnaan aan la soo iibinin waa sax waa in gana la yiraahdaa arrimihii maartay jidadka noo daray dhoobade bal imikana dabdamiskii aan doonano oo wixii dambe lacag helo aan dabdamis soo siisan dabdamis ko kala iibsadana hawshii ma dhamaanin bulaacadaha qashinka wixii qaadi lahaa qashinka la qaado waxa laga yaabaa meelaha duurka lagu daadinayo dadkii reemiga inay waxyaalo ka soo gaarayso iyo xoolihiiba kaana saynu ka yeelayn leeyahay waxaan waa wax process oo maalin walba wax lagu soo kordhiyay marka fahanka in la haysto oo dadka masiibo qutayaasha siyaasadii ka fahmay masiibada dhacda dawladda ka mas'uula kuwa inaan warkooda aan dhig loo dhigin baa loo baahan yahay markaan saa leeyahay macnaheedu ma aha goldololooyinka dawladda yaan la sheegin ma sida raaligelinta loo bixiyay sida fagaaraasha la isugu imanayo wixii khaldan shacabka mas'uul yahay waarun halka waan ka gaabinay halkaas maar ina eegnay ahayd midhablaayo anagoo ina horeysa ahayd midhablaayo la geeyay waxa oo dhan xukuumaddu diyaar bay u tahay mana xukuumad macangaga oo dadka inay ka adkaato madaxa ka garaacdo laga cabsado loo sujuudo rabta ma saad ogtiin in la xisaabtamo in la doodo in la dhaleeceeyo xukuumad diyaar weeyaan adduunka sidaa ma ku shaqeeya dalalka degan adduunka waa kuwa sidaa ku shaqeeya dadkii mashruucan dhawaatada ka soo gaadheen ha ku bashaaraystaan mashruuc maanta waa la bilaabay halkan waxaan aaminsanahay mashruucan in lagu guuso sida mashruuca koridorka iyo mashruuca shabeeley oo dawladdu gacan weyn ka geysato unbaa lagu suurtagelin karaa inuu muddada lagu talagalay 2 sano lagu dhammaystiro sida mashaariicdaasi maanta ay wax uga bedeleen muuqaalka magaalada wuxuu noqon doonaa mashruuc xadaaradda iyo ganacsiga magaalada si weyn u bedela oo Soomaalida geeska oo dhan isugu timaado mool halkan ku yaala adduunkii mool walba ku soo ururaya iyo magaalo miyiga laga soo guuraya marka inuu saan noqon doonaan aaminsanahay cid walba oo inay gacan ka geysata rabtana waan soo dhaweynaynaa fursadihii maartay barnaamijkaas ku hirgeli lahaana waan abuuraynaa insha Allah hadii la yidhaa xilliga lagu talagalay in lagu dhamaystirana waxaan hakran doonto dawladdu ma jirto dacaayadka iyo waxyaalaha hore la sheegay maanta waa taan aragnaa ma dacaayad ugu horeysay 7 sano in joogno وهذا iyaguna kama daalan annaguna hawsha kama daalo